بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa haduu leeyahay insha Allah inaan tilmaamno ciwaan muhiim ah kaas oo ah go'aanada maamul waxaan tilmaami doonaa haduu ilaahay raado insha Allah tilmaam buuxdan aan ka bixinaynaa waa maxay go'aan maamul sidoo kale to goorma ayuu go'aanka maamul noqonayaa mid aan sharci ahayn yaa codsan kara in la baabi'iyo sidoo kale to go'aanka maamul waxyaabaha lagu dacwoodo ee ku saabsan go'aanada maamul ayadana waan tilmaami doonaa qaabkee ayuu u qoran yahay go'aanka maamul ayadana tilmaam buuxda ayaan ka bixin doonaa habka ay ku bilowdaan go'aanada maamulna sidoo kale iyo soo saaristooda tilmaam buuxda ayaan ka bixin doonaa go'aanka maamul intee looga cawdaa sidoo kale tilmaam buuxda ayaan ka bixinaynaa waan sii doonaa shuruucda dalka maxay ka dhaheen cabashada maamul waxaan intaas daan isla soo sheegnay aan ciwaan aan u qabanno go'aan maamul waa maxay administrative acts haddaan isweydiino administrative acts waa maxay waa go'aan kasta oo maamul kaasoo ay soo saarayso hay'ad si loo xakameeyo arrin gaara taasoo looga gol leeyahay gudashada dan guud go'aanka maamul waxaa la dhihi karaa waa waxba ciladaysan yahay ama waa waxba kama jiraan waxyaabaha soo socda ama markii la helo waxaa ugu horeeyo excess of power haddii uu maamulku bixiyo fasiraad qaldan ayaa waxaa la dhihi karaa waa ciladaysan yahay go'aanka maamul ama waa waxba kama jiraan sidoo kaleeto absolute incompetence marka waa marka maamulka uu dhex gelayo awood uusan lahayn waxaanu leenahay waa waxba kama jiraan relative incompetence waa marka qofka maamulka uu yani asigu dhex gelayo awood maamul kale oo isagu uusan lahayn haddii maamulka uu soo saaro go'aan ciladaysan go'aan aan cadaalad ahayn oo fairness ah markaas waxaynu leenahay maamulku wuxuu galay awood uusan lahayn violation of law ayaa ka mid ah oo ah violation of law oo ah ayada marka fasiraad qaldan laga bixiyo sharciga haddii sharciga fasiraad qaldan laga bixiyo si sharciga uu sharciga ku xadgudbaayo ayadana go'aankii maamulka xaleena waa waxba kama jiraan de facto officials waa qofka xafiiska iska soo gelayo isagoon sharciyeysnayn qabanayana howl aansan u haysanin magacaabid oo aan loo dirsanin qofkaas waxaanu leenahay go'aanka uu soo saaraa waa ciladaysan yahay waa waxba kama jiraan private ex subject waa marka shaqo caadiya uu qabanayo oo private ah oo aan loo xil saarin marka sidaas daraaddeed waxay tahay su'aal ayaa taagan meeshan su'aal ayaa taagan su'aashaasna waxay tahay yaa codsan kara in la baabi'iyo go'aankii maamul ee aan sheegnay ee soo baxaa haddii uu cabasho ka geeyo dhinac ka mid ah dhinacyada uu saameeyey go'aankaasi wuxuu noqonayaa qaraarkaasi mid sharciga ka baxay una baahan reform dib u habeyn waxaa jira laba nuuc oo cabasho ah oo ay sameeyaan go'aanada maamulka ka soo baxa waxaana loo kala yaqaanaa waxay tahay waa administrative appeal in laga sameeyo maamul administrative ah wax ka soo baxay sidoo kaleeto judicial appeal in la sameeyo cabasho laga sameeyo ayadana way noqon kartaa labadaas nuuc ayaa laga sameeyaa cabasho haddii uu yahay go'aanka maamul mid sharci darro ah unlawful administrative acts waxaa lagu samayn karaa wax ka bedel ama revocation waxa loo yaqaano revocation ayaa lagu sameeya waxa uu imaan karaa revocationka xilli walba waa maxay reform haddii aynu shafiirno reform macna ahaan waa in go'aankii ka soo baxay maamulka wax ka bedel lagu sameeyo ama si kale haddaan u sheegno waa in qaraarkaas qayb ahaan ama guud ahaan la tirtiraa ama wax ka bedel lagu sameeyaa waxyaabaha laga dacwoodo ee ku saabsan go'aanada maamulka waa inay ahaadaan labo nuuc kow fal sharci darro ah iyo qaraar sharci darro ah maamulka looga baahan yahay maxaa looga baahan yahay maamulka go'aanka maamul waxaa looga baahan yahay inuu ahaado go'aan maamul oo dhexdhexaada go'aanka maamul waa inuu ahaadaa go'aan dhexdhexaada aan qarsoodi ahayn cadaaladda ah sidoo kaleeto ku dhisan sharciga sidoo kaleeto maangal ah loona maray habraacii loona maray hanaan caadila iyo habraacii loogu talagalay ee sharciga qaabkii ayuu u qoran yahay go'aanka maamul wuxuu qoran yahay sidatan soo socota waa inuu horta kow sumad uu leeyahay hay-addii soo saarta sumadeeda waa inay leedahay iyo instaatadeeda iyo taariikhda in la caddeeyo qodobada la cuskaday soo saarista go'aanka maamul iyo asbaabaha go'aanka lagu saleeyey
waxaan u caddaynaynaa yani waxa u caddaaday ku dhaliyey in uu ka soo baxo go-aanka maamul iyo soo saaristiisa. go-aanka maamul ee hay-adda soo saartay waa inay awood u leedahay kow marka ugu horeyso soo saaristeeda go-aanka maamul. go-aanka maamul soo saaristooda waxa ay ku bilowdaan laba qaabo ay ku bilowdaan in dhinac cabasho keensado iyo in maamulka xafiis ahaan u bilaabo. go-aanka maamul waxa uu noqonayaa mid sharci ahayn mid aan sharci ahayn haddii marka ugu horeyso haddii uu ka soo baxo hay-ad aan ikhtisaas u lahayn, haddii ay ka maqan yihiin tiir ka mida tiirarkii asaasiga ahaa ee go-aanka maamul loogu talagalay, haddii lagu soo saaro si xadgudub ah oo awood ah, sidoo kale haddii lagu xadgudbo qodobo qaanuuniya ayadana wuxuu noqonayaa go-aankii maamul mid waxba kama jiraanah. go-aanka maamul waxaa ka furan cabasho. qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu ka cabto go-aanka maamulka ka soo baxay. maamulka guud haddii lagu xadgudbo xaq uu isagu leeyahay ama haddii ay jiraan ay jirto dacwo ama haddii ay dan guud ugu jirto dacwadda, guud ahaan cabashada go-aanka maamul waxa uu noqon karaa kow cabasho kala sarreyn maamul inaad samayso, cabasho aan caadi ahayn inaad samayso, oo cabasho madaxweyne inaad samayso, sidoo kale oo cabasho maxkamad ikhtisaas u leh. berigii hore waxaa loo caban jiray madaxweynaha timidaas ayaan rabnaa, laakiin dastuurkii 60kii automatically mausan isaga kadib laguma qorin oo cabashada madaxweynaha, laakiin berigii hore toos waxaa jiri jirtay oo cabasho madaxweyne. shuruucda Soomaaliyeed si guud ahaan maxkamadda sare ayaa awood u leh soo saaristo, maxkamadda sare ayaa awood u leh cabashada inay qabato. maxkamadda sare horteeda waa qasab qofku inuu qareen helo, sidoo kaleeto marka loo cabanayo. shuruucda Soomaaliyeed maxay ka dhaheen? Soomaaliya shuruucdeeda maamulka markii laga hadlaayo meelaha ay ka soo qaatay maxkamadda sare ayaa awood u leh oo looga cawdaa go-aanada maamulka kama dambaysta ah, sida ku cad qodobka 10aad xarafkiisa B xeerka habka madaniga Soomaaliyeed iyo qodobka 7aad faqradiisa 4aad iyo qodobka 13aad faqradiisa 3aad xarafka B ee xeerka nidaamka garsoorka ayaa asigan ayadana tilmaamaya. sidoo kale qodobka 33aad dastuurka federaalka kumeel gaarka ayadana uu tilmaamaya. kaalmaysiga qareenka marka la joogo maxkamadda sare horteeda waa qasab, sida ku cad qodobka 54aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed. guud ahaan dacwad kasta waxa ay leedahay laba dhinac oo kala ah dhinaca falka oo loo yaqaano de facto iyo dhinaca xeerka oo ah ama dhinaca sharciga oo loo yaqaano de jure. inta badan maxkamadda sare waxa ay xukunada iyo go-aanada looga soo cabto ka fiirisaa dhinaca xeerka oo ah ugafidda qodobada qaanuuniga ama habraacnimadooda, sax ahaanshaha qaabka iyo go-aanada u qoran yihiin, habka ay u qoran yihiin go-aanka iyo asbaabta go-aanka uu ku soo baxay. waa in go-aanka uu ahaadaa marka ugu horeyso go-aanka waa inuu ahaadaa mid maangal ah oo ku salaysan sharciga iyo dhexdhexaad ah, loona siman yahay cadaaladda. go-aanka maamul lagu cabanayo marka ugu horeysa waa in laga cabanayaa marka marka ugu horeysa waa in la ogeysiiyaa hay-addii soo saartay. marka aad rabto inaad ka cabato waa inaad ogeysiisaa hay-addii soo saartay iyada oo loogu sheegayo in ay ka laabtaan go-aankii sharci darada ahaa ee ay soo saareen. kadib cabasho looga qaadanayo maxkamadda sare ayaa imaanaysa markii la ogeysiiyo. cabashada waa inay waafaqsan tahay aad qaadanaysid qodobka 246 faqrada 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo sidoo kale waa inay waafaqsan yihiin qodobka 250 xeerka habka madaniga Soomaaliyeed. faqrada 246 waxay leedahay ka cabashada in dhinaca ikhtisaas dhuleedka iyo midka maadiyad waa inaad ka cabataa. faqrada labaad waxay leedahay sidoo kaleeto ka cabashada ku xadgudubka qodobada qaanuuneed iyo habraacyadooda. faqrada 3aad waxay leedahay baaba xukunada iyo go-aanada
go-aanka iyo kala duwanaanshiyaha mawduuca ayaad ka cabanaysaa. sidoo kale waxaad ka caban kartaa faqrada afaraad asbaab la-aanta xukunka ama go-aanka iyo ku filnaan la-aantiisa. saxiixa cabashada waxa uu ka kooban yahay ama saxiixa cabashada waxa ay ka kooban tahay marka aan fiirino qodobka 250 xeerka habka madaniga Soomaaliyeed. waxyaabaha uu tilmaamayo waxaa ka mid ah in la tilmaamo magacyada iyo degmooyinka dhinacyada oo dhan, sidoo kale sumadda iyo taariikhda xukunka ama go-aanada waa in ayadana ay ku tilmaaman tahay go-aanka laga cabanayo. sidoo kale bandhig kooban waa inaad lagu sameeyaa bandhig kooban oo ku saabsan arinta dacwadda iyo cabashada, ayadana waa in la sameeyaa. sidoo kale asbaabta cabashada iyo qodobada ay ku dhisan tahay waa in ayadana la tilmaamaa. sidoo kale tilmaamid waa in la tilmaamaa oo la tilmaamaa haddii wakaalad ay jirto, taas wakaaladaas la sameeyey oo warqad gaar ah haddii ay jirto. يعني haddii waa in la tilmaamaa tilmaamidda wakaalad haddii lagu sameeyey warqad gaar ah oo ay warqad gaar ay jirto. sidoo kaleeto waa in la waafajiyaa arjiga cabashada iyo arji kasta oo dacwadda furashada arji kasta oo dacwad furashaa isaga waa in la waafajiyaa qodobka 119aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed. sidoo kale waa in qodobkan waa in lagu tilmaamaa tilmaamidda maxkamadda dacwadda oo la horgeynayo, in la cadeeyo magacyada dhinacyada iyo halka ay degan yihiin. sidoo kaleeto faqrada afraad xaaladda waa in lagu cadeeyaa waa in lagu cadeeyaa xadidaadda duluucda dacwadda waa in lagu cadeeyaa marxaladaas. sidoo kaleeto in la sheego falka iyo mabaadi'da xeereed ee saldhigga ku ah dacwadda iyo gebagabada intaba waa in la sameeyaa. sidoo kaleeto faqrada saddexaad waa in la tilmaamaa tilmaamidda qodobada sugidda dacwadda iyo dokumentiya haddii ay jiraan oo soo bandhigayo. sidoo kaleeto waa in la tilmaamaa magacyada wakiilka haddii ay wakaaladi jirto oo gaar ah. intaas kadib saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin daawashadiina. waxaana leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.